kulankani ka qabsamay hotel Legacy ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa raaligelin lagaga bixinayay hadal dhawaan ka soo yidhay Nuux Taani taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxaana raaligelin lagu siinayay beelaha ay ka soo jeedaan ciidamada Soomaaliland dhawaan ka goostay oo taliyuhu ku tilmaamay kuwaan markii hore waxba ku filayn. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba dhalinyaro waxgarad waayeel siyaasiyiin iyo sidoo kale qaar ka mid ah labeenta beelaha deegaanka Soomaaliland waxaana ugu horeyn bayaan ay ka dhan yihiin badiba dadka deegaanahan deegaanka Soomaaliland akhriyay siyaasi Cabdilaahi Geeljire. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. maanta ay bishu tahay September bishii 9aad koodeedii 2019 halkan waxaan ku soo gudbinaynaa baaq aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland oo ku wajahan xaaladda deegaanada bariga Sanaag. Soomaaliland waxay ka unkantay kuna dhisantay welina ku taagan tahay ogolaanshaha iyo ku qancidda loo siman yahay ee dadka wada leh ee Ilaahay ku abuuray. Soomaaliland waxay ku tanaaday oo ku taabagashay nabadda ay si wada jira u ilaashadaan uguna tacab galaan. wixii nabadda dib ku yimaadana waxay u maareeyaan si niyad wanaag leh iyo wada jir. Soomaaliland waxay dhaqan ka dhigatay inay iska dhigaysato cabashooyinka ka yimaada hadba qayb ka mid ah bulshooyinkeeda ku nool gobolladeeda kala duwan oo inta itaalkeeda ah si hagrasho la'aan ah ay uga falceliso حتى هداني wax badan ka qaban karin. dhankiisa isaguna Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadoomadashani ka hadlaya waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda kulankani uu leeyahay isagoo raaligelin ka bixiyay hadalkaasi taliyaha raaligelin siiyay deegaanada ay ka soo jeedaan askartaasi lagu tilmaamay inaanay waxba ku filayn. maanta qadan waxaynu sameeynay waxa weeye inaynu arrin baanan dhootan dhacday axadii hore dhacday maanta week baa laga joogaa oo magaranaysaa statement sii daayay taliyaha ciidamada oo dadku aad iyo aad dadka reer Soomaaliland uga gilgisheen inaynu inagoo midaysan reer Soomaaliland oo caan ku ahayn inaynu xumaanta iska qabanno gefka iska raali gelino inaynu tusno inuu arrinta aad iyo aad uga xunnahay raaligelin cod midaysan oo reer Soomaaliland aanu ku miijino leenahay raali ahaada deegaankii dadkii deganaa ay ku socotay inkastoo carabka lagu dhufan laakiin waa la geliyay ku socotay message halkaas inaynu nila raali ahaada